maxaa ka jira in ruushku ay dheeldheel ku sameeyeen doorashadii sanadkii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka heerkee bay gaarsiisan tahay faragelinta ruushku ay ku sameeyeen doorashada Mareykanka maxayse yihiin maslaxadaha ugu jiray musharaxiintii u tartamayay doorashada Mareykanka faragelintaas waa maxay natiijada ka soo baxday baaritaankii dowladda Mareykanku ay ku sameysay arrintan maxayse dowladda ruushku kaga jawaabtay su'aalahan iyo arrimo kale ayaa waxa maqaal dheer ka qoray jiradda Mareykanka ka soo baxday ee Newsweek maqaalkan oo tafatiraha guud ee wargeyskaasi Tom Browder wargeyskan ayaa ciwaan looga dhigay Vladimir Putin oo ka eedeeyay Yuhuudda iyo dad kale oo ka mid ah qoomiyadaha laga tirada badan yahay Ruushku in iyagu ku lug lahaayeen faragelinta dowladda Mareykanka Putin oo ka jawaabay su'aalahan ayaa sheegay isaga inaanay wax macnaa u lahayn in dad metelaya xukuumadda Ruushku ay faragelinta sameeyeen Putin waxa uu sheegay dadka faragelinta sameeyay inaanay metelaynin xukuumadda Ruushka waxa kale oo laga yaabaa buu inaanay ahayn Ruush waxa dhici karta inay ahaayeen Ukrainiyiin ama Tatar ama Yuhuud sita jinsiyadda Ruushka waxaana waajib ayuu yiri in baaritaan lagu sameeyo arrintan waxa dhici karta ayuu inay ahaayeen dad sameystay jinsiyadda Ruushka si foojiriya ama waxa dhici karta in dowladda Mareykanka laftigeedu ay maalgelinaysay qoraal ka soo baxay guriga looga arrimiyo dalka Ruushka ee Kremlinka ayaa lagu sheegay in Vladimir Putin aanu wax lagu lahayn faragelintaas wargeyska Newsweek ee ka soo baxa Mareykanka ayaa ka soo xigtay xubin ka tirsan golaha Knessetka ee dalkaasi Israa'iil oo magaceeda la yiraahdo Ksenia Safiltova inay tacliiq ka bixisay hadallada Donald Trump waxay tiri waxa laga yaabaa in Yuhuuddu ay faragelisay doorashada Mareykanka waxa laga yaabaa bay tiri in Yuhuudda kale laftigooda dhibaato soo gaarsiiso waxaan oo dhami waxa weeyaan karaahiyada Yuhuudda waxa kale oo eedeymo loo soo jeediyay Israa'iiliinta taageeray oo lihii doorashada ee Donald Trump kuwaasi oo iyaga laftigooduna cadaadis ku saarayay guriga cad ee Mareykanku inuu jawaab ka bixiyo hadallada ka soo yeedhay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyadoo arrimahan oo dhami ay jiraan waxa la isweydiinayaa Donald Trump laftigiisu haddii uu taageero hadallada ka soo baxay Putin wejiga siyaasadeed ee arrintan yeelan doonto Vladimir Putin waxa uu sheegay Ruushku inaanay lahayn awood ay ku farageliyaan arrimaha gudaha ee dowladaha kale waxa uu sheegay in dastuurka dalkaasi uu dhigayo mabda ahaan inaan loo ogoleyn kuwa kale inay soo farageliyaan arrimaha gudaha ee dalka Ruushka sidaas oo kale inaanay Ruushkuna faragelin ku sameeynin arrimaha gudaha ee dowladaha kale